wiilka yari waxa uu ahaa mid u yimaada lo'da maalin kaste isagoo isku duubaya baaqina ku ahaanaya agteeda. waxa uu ahaa ninka lo'da iska lihi mid wareersan ilaa uu go'aansaday bal in uu fahmo oo uu ogaado waxa jira. waxa lama filaan ku noqotay oo uu rumaysan waayay waxan uu maalin kaste indhihiisa ku arkayo. Defendera waxa uu ku noolaa tuulo ku taala waddanka Hindiya kaasoo ka shaqayn jiray wax beerashada. waxa uu lahaa sax lagu magacaabo Maria. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu arkay wiil yar oo 2 ilaa 3 jir ay da'diisu tahay kaas oo fadhiya dhinaca saca. aad ayaa ula yaabay waxa uu arkayo. wiilka yar waxa uu ahaa mid ku jiifa luqunta ama qoorta saca. sidoo kalena sacu wax dhibaato uma geysanay wiilka yar. sacuna waxa uu ahaa mid iska wata wax cunistiisa. Defendera waxa uu weydiiyay wiilkii yaraa maxaad halkan u fadhidaa. intaas kadib Defendera waxa uu ku laabtay shaqadiisii laakiin xusuustiisa marnaba kama marnayn arrinta wiilka yari oo markaste waxa uu ka fikirayay wiilka yar iyo arrintiisa. waxa uu weydiiyay cid kastoo u dhaweyd oo ka mid ahayd dadkii tuulada laakiin cidna ugamay waramin oo wax warbixina kamaysin arrinta wiilka yar. maalin kaste arrinkan waxa uu ahaa mid soo noqnoqda. Defendera waxa uu isweydiin jiray su'aalo tiro badan oo ay ka mid yihiin wiilkan yari wax ayo xagee ayuu ka yimi, waa maxay sababta ama xiriirka ka dhaxeeya wiilka yar iyo sacan Maria. haddaba ninkii Defender ahaa waxa uu go'aansaday oo uu ku dhaqaaqay inuu raaco wiilka yar isla markaana waxa uu helay uu arkay wiilka yar oo u sii jeeda guri yar oo ku yaalay agagaarka tuulada. waxaana uu arkay Defender nin taagan albaabka gurigaas. kadib waxa uu weydiiyay arrinkii hase yeeshee waxa uu maqlay aad ayaa uu la yaabay. hadalkaasina waxa uu noqday mid saameyn ku yeeshay. waxa uu ku yiri wiilkan yar waalidiintoodu way dhinteen muddo aan fogeyn ka hor inta aanay dhiman. wiilkan yar ee lagu magacaabo Croatia waxa uu ahaa mid tagi jiray meesha lagu xanaaneeyo lo'da. waxa uu siin jiray lo'da cunto sidoo kalena waa uu xanaaneyn jiray aadna waa uu jeclaa lo'da. marka lo'da waxa iska lahaa waalidiintooda ayaa lo'da dhaqan jiray oo xanaaneyn jiray. Croatia waxa uu ahaa mid sameyn jiray waxa ay hooyadii samayso oo kale. waxay lo'du haayeen kuwa aan waxba yeelin oo aan wax dhibaato u geysan wiilka yar. isaguna waxa uu kori jiray lo'da dusheeda isagoo weliba si ammaan ah lo'da dusheeda u saarnaan jiray. hase yeeshee kadib markii ay hooyadii dhimatay aabihii waxa uu go'aansaday in uu iibiyo dhammaan lo'dii oo dhan waxayna u guureen tuulo kale si ay ugu noolaadaan. laakiin wiilka yar ee Croatia muu joojin caadooyinkiisii ahaa inuu wax siiyo oo uu xanaaneeyo oo uu jeclaado xayawaanka gaar ahaan lo'da. sidaa aawadeed ayaa uu samaynayaa dhaqamadan waayo hooyadii ayaa sidan samayn jirtay oo ku soo barbaarisay. ayaa ugu jawaabay ninkii albaabka ama afaafka guriga taagnaa. sheekadeennu intaas ayay ku eg tahay daawade. haddii aad sheekadan ka heshay fadlan muuqaalka like saar siina share gare oo la wadaag asxaabtaada. fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wixii fikra iyo talo ee ku aadan qisadan nagula wadaag barta faallooyinka ee commentiska.